tababarkan oo muddo bil ah ka socday Akadeemiyada Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee General Kaahi ayaa waxaa ka qayb qaatay 200 oo sarkaal kuwaas oo laga soo kala xulay hogaanada iyo qaybaha booliiska waxaana munaasabada lagu soo xirayay maanta lagu qabtay dugsiga Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee General Kaahi taa oo ay ka qayb galeen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha taliyaha ciidanka booliiska agaasimaha guud ee wasaaradda amniga madax ka socotay hay'adaha booliiska taageera ee caalamka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed tababarka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga gudaha oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ee kala shaqeeya horumarinta booliiska ayaa waxaa saraakiishii ka qayb gashay lagu barayay hogaaminta iyo maamulka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha Yuusuf Cali Maxamed ayaa ka hadlay muhiimadda uu lahaa tababarka waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xiritaanka tababarka 200 saraakiil oo lagu tababarayay hoggaanka iyo maamulka ciidanka oo aan joogay maalintii la furayay bisha afarteedii maanta ilaahay ugu gaarsiiyey inaan ka soo qayb galo xiritaanka muhiimadda ay u leedahay wasaaradda amniga inuu dhaco tababarka noocan waa mid aad iyo aad u muhiim ah sababtoo ah tababarka noocan waxaa ku diri jirtay muddo laga joogo 3 sano 4 sano ka hor 5 qof ilaa 10 qof si ay wax ugu soo bartaan dibadda laakiin maanta waxaynu maraynaa in 200 oo ciidan ah oo saraakiil ah aynu ku tababarno waddankeena dhexdiisa iyo akadeemiyadii taasna waa mahad alle oo aan aad iyo aad u rajeeyo muddada dheer aan joogo wasaaradda amniga inaan indhaheyga ku arkay maalin maalmaha ka mida in ciidamada Soomaaliyeed ay u yeeshaan in ay tababarka bixi karaan heestaan kuwa kale oo tababarka ka faa'iideysanayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa wasaaradda amniga iyo hay'adaha kale uga mahad celiyay tababarada ay siiyaan booliiska waxa sharaf ah ama dhamaanteen sharaf noo ah inaanu maanta u goobjoog ka nahay xiritaanka tababarka kan ay ka soo qayb galeen saraakiisha gobolka Banaadir ee tirada badan ee lagu baranayay maamulka iyo maareynta howlaha kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore inaan uga mahad celiyo wasaaradda amniga ugu horeeyo wasiiru dowlaha agaasimaha guud gaar ahaan isagu gacanta ku haya projectkan iyo qolada UNDP loo yaqaaniyo JBB ee iyaguna ah shaqada nala wadaaga ee isku soo dubariday ka soo taliyay ka soo shaqeeyay in tababarka kani uu maanta halka kan aanu ku qaadanaa akadeemiyada nooguna soo xirmo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa tilmaamay in tababarka ay qaateen saraakiishu uu qayb ka qaadanayo xoojinta amniga tababarkani runtii waxa weeye waa tababar aad iyo aad muhiim u ah in la kordhiyo khibradda iyo aqoonta ay u leeyihiin saraakiishu inay hantaan amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda marka waxa weeye runtii aqoontiina ayaa kor loo qaaday waxaa rabaa inaad uga faa'iideysaan saraakiisha in ka hooseysa askarta in ka hooseysa iyo shacabka aad maxaan ku u adeegeysaan intaba maxaa yeelay tababarkani wuxuu ku saabsan yahay maamulka iyo sida la sheegay iyo hogaaminta maamulka iyo hogaamintuna waa meesha ugu muhiimsan ee ciidamada booliiska maxaa yeelay waa halka go'aanka laga gaaray go'aanka aad gaartaanna ama qofaa ku noolaanaya ama qofaa ku dhimanaya marka aad ayuu muhiim u yahay inuu qofku uu tayadiisa ay sarreyso sarkaalka tayadiisa la hagaajiyo gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf lagu doonsiiyey qaar ka mid ah saraakiishii ka qayb gashay tababarka